kulanti wacan oo wanaagsan. Halkan waa SWC Media. Ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadka ka dahsoon. Fadlan subscribe saar channelka haddii aadan hore u saarin. Ku soo dhawow muuqaalkan cusub. dalka Hindiya oo ka mid ah wadamada ugu badan dunida ee ka dhacan dhacdooyinka la yaabka leh ayaa toddobaadkii hore waxaa la baahiyey sawiro argagax leh kadib markii qaliil lagu sameeyey askari ka tirsan booliska wadankaasi kaasoo lagu magacaabo Surjit Singh 42 sano jirkan ka soo muuqday isbitaalka Cobreed ee magaalada Amritsar ayaa calooshiisa laga soo saaray 40 mindiyadood kuwaasoo liqay muddo 2 bilood ah balse markii dambe ku keentay xanuun kalifay inuu tago goob caafimaad. Singh ayaa kalkaaliyaasha caafimaadka u sheegay inuu ka dhibaatoonayo dhinaca caloosha waxaana dhaqaatiirtu u diray raajo ama X-ray taasoo keentay in shaashada laga arko sawir aan noociisa horey loo arag. Ninkan oo muddo 5 saac ku jiray qaliin ayaa lagu guuleystay in calooshiisa laga soo saaro tiro mindiyo gaaraya 40 xabo taasoo keentay in su'aalo badan la weydiiyo xilli uu soo naaxay. Wuxuu sheegay isagoo la hadlayay The Guardian ma garan karo sababta ay u kaliftay laakiin waxa ay jiidanayay waxyaabo aan awoodi karin xakameynteeda. Runtii way ii macaanatay marka aan la qeetay ugu horeysay balse muddo kadib waxay ii noqotay caado laakiin xanuun daray ay u keentay. Surjit Singh oo si hadlayay ayaa sheegay inuusan dib ugu noqon doonin haddii uu ka badbaaday halista adag oo naftiisa geliyay. Dhakhtarka qalinka sameeyay ayaa isna warbaahinta u sheegay in dhacdadan ay tahay markii ugu horeysay oo ay la kulmaan isagoo xusay in xaaladiisa caafimaad hadda ka soo reynayso. Arrintan ayaa si aad ah toddobaadkan loo falanqeynayay warbaahinta caalamka kuwaas oo siyaabo kala duwan u fasiray dhacdadan oo ka mid noqonaysa mucjisooyinka dalkaasi ka dhaca. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. waxaan rajaynayaa wax badan inay kaaga baxeen muddada aad daawanaysay. fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka SWC Media. mahadsanid tan iyo kulanti dambe. wassalaamu calaykum.